dagaalka Thailand iyo Cambodia ayaa lagu waramayaa inuu mar kale faraha ka baxay iyadoo subaxnimadii hore ee saaka lagu waramay in Thailand madaafiicda goobta iyo kumanaan askari ku daabushay xadka gobolka lagu magacaabo Ben Tai Min Shai ee ku yaala waqooyi galbeed ee Cambodia. dhaqdhaqaaqyadaas oo Cambodia ku tilmaantay mid baalmarsan shuruucaha caalamiga ah iyo madax bannaanideeda daleed. isla shalay Cambodia waxay Thailand ku eedeysay inay dad rayid ah oo ku nool qayb ahaan gobolkaas madaafiic culus la beegsatay, taasoo ay ku tilmaantay mid garan marsan shuruucaha adduunka ee aadaninimo. dagaalka labadan dal ee ku yaala koonfur bari ee qaaradda Asia ayaa maalintii afraad galay, kaasoo marka loo eego dhaqdhaqaaqyada dhinacyadu xadka lagu dagaalamayo ka wadaan la oodorosayo inuu noqon doono dagaal dabo dheeraada iyo xiisadu xakamaheedu adkaan doono. Cambodia oo u muuqata mid dagaalka looga gacan sareeyo waxa wasiirkeeda difaacu ku baaqay in ciidamada Thaigu dhaqso u joojiyaan hujuumka kana baxaan xuduudaha Cambodia, isagoo tilmaamay in dhaqdhaqaaqyada Thailand halis ku yihiin waxa uu ugu yeeray nabadda iyo xasiloonida gobolka. dhimasho tobanaan gaarta ayaa lagu waramayaa inay goor horeba ka dhalatay colaadan dhawaangalka ah. geerida oo dad rayid u badan ah waxa ay ka dhalatay dagaal weyne arbacadii dhinacyadan ku dhex maray dhul xuduudeed cabirkiisu ka badan yahay 800 kiiloomitir, kaasoo labada wadan wadaagaan. colaada labadan wadan oo ku bilaabatay dagaalkii 5 maalmood ee bishii July isla xuduudahan ku dhex maray dalalkan ayaa haatan u muuqday inuu yeeshay waji ka ballaaran kii hore, ka oo xakamayntiisu adkaan doonto. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bilowgii limin ku sheegtay soo afjaridda dagaalka labadan dal, kaasoo uu ku darsaday tirsiga dagaalo kala duwan oo uu sheegay inuu isagu joojintooda sabab u ahaa. isla lafahaantiisa ayaana shalay qirtay inuu ku fashilmay soo afjaridda dagaalka Cambodia iyo Thailand. And I hate to say this, one named Cambodia, Thailand, that had started up today, tomorrow have to make a phone call, and I think they'll get us. nasiib darro ayuu ku tilmaamay inay mar kale dalalkani fooda iskeliyeen, waxaase uu sheegay inuu inta telefoon u diro oo wicitaan uun ku xallin doono. isla taas oo uu si faan leh u yiri, Who else could say, I'm going to make a phone call and stop? yaa kale oo oran kara inta wicitaan sameeyo ayaan joojinayaa dagaalka labo dal oo ka mid ah kuwa adduunka ugu awoodda badan. ha yeeshee waxay u muuqataa inuusan wax wicitaanka Trump markan waxtar noqon. wararku waxa ay tilmaamayaan inuu haatan si rasmi ah u bilowday dhaqdhaqaaqa diyaar garowga dagaal ee ducuhu ka wadaan xuduudahooda. Thailand waxay dhinaceeda Cambodia ku eedeysay in ciidamadeedu goobo taariikheedyo ay Thailand iska leedahay inta xeryo ciidan ka dhigteen ka weerareen xuduudaha Thaiga, taasna ay sababtay weerar celiska ciidamada Thailand. waxay Cambodia ku eedeeyeen inay inta dagaalka bilowday haatan iska dhigayso dhibanaha natiijada ka dhalatay. ilaa 8 askari oo ka mid ah ciidamada Thailand ayaa dagaalka ku dhintay toddobaadkan sida AFP ku warantay, halka in boqolaal ku dhowna dhaawacantay. shabakadani waxa ay tilmaantay in dhinacyadu joogtayeen eedaymahooda midba kan kale ku haaraamayo mas'uuliyadda dagaalka, taasoo haatan natiijadeedu u muuqato dagaal rasmi ah oo labadan dal ka dhex qarxay.